dagaal ka dhana box officerka Sarifanshe inshallah Shamsheer RRR iyo isku dhacyada ugu waaweyn 2020 sanadka xiga ee 2020 Bollywoodka waxa la filayaa inuu mar kale u noqdo sanad barwaaqo ah maadaama mashaariic waaweyn la wada sugayo in la daawado oo ay superstarska waaweyn hogaamiyayaal ka yihiin balse Bollywoodka iyaga ayaa fursadaha qaar iska beeldareynaya maadaama hal mar tiyaatarada la isla saarayo filmaan waaweyn oo miisaaniyad waaliya xambaarsan oo ay macquul tahay in aflaamta qaar ganacsi fiican ay keeni waayaan isku dhacyo waaweyn ayaa jira sanadka xiga Bollywoodka iyo aflaamta xidigo waaweyn ay hogaamiyayaal ka yihiin oo hal maalin tiyaatarada la isla saari doono fadlan hoos kaga bogo halka taariikhda aflaamta isla qabsadeen mid walibana fasaxa ayuu rabaa inuu ka faa'iideysto superstar Akshay Kumar ayaa dib ugu soo noqday sameynta filimada dagaalka ah wuxuuna markii ugu horeysay la shaqeynayaa directorka actionka looga haray Rohit Shetty iyagoo ku midoobay film dagaal oo magaciisana la dhaho Sarifanshe Ciidul Fidriga 2020 ayayna qabsadeen in mashruucooda la daawado balse mega star Salman Khan oo Ciidul Fidriga isaga mar walba aflaamtiisa daawan jiray superstar Akshay Kumar ayaa dib ugu soo noqday sameynta filimada dagaalka ah wuxuuna markii ugu horeysay la shaqeyn doonaa directorka actionka looga haray ee Rohit Shetty iyagoo ku midoobay film dagaal oo magaciisana la dhaho Sarifanshe Ciidul Fidriga 2020 ayayna qabsadeen in mashruucooda la daawado balse mega star Salman Khan oo Ciidul Fidriga isaga mar walba aflaamtiisa la daawan jiray ayaa dhawaan la shaaciyay in filimkiisa inshallah isla Ciidul Fidriga 2020 la daawan doono waxaana markii ugu horeysay filimka la jiri doonto Aaliya Bhatt waxay kala helaan ayay leeyihiin labadan filim Ciidul Fidriga 2020 la wada daawan doono waana isku dhacyo waaweyn Shamsheer vs RRR soddonka July sanadka xiga waxaan arki doonaa lamaanaha jacaylku ka dhaxeeyo ee Ranbir Kapoor iyo Aaliya Bhatt oo dagaal box officerka dhex mari doono kadib markii ay si rasmi ah shaaca looga qaado in filimada kala ah Shamsheer iyo RRR halkaas taariikhda la wada daawan doono Shamsheer oo Ranbir Kapoor iyo Sanjay Dutt hogaamiyayaal ka yihiin sanadkii hore ayay taariikhdan qabsadeen balse directorka filimka Bahubali SS Rajamouli mashruuci RRR wuxuu ku dhawaaqay in soddonka July la daawan doono waxaana mashruucan ay wada jiri doonaan Ram Charan NTR Ajay Devgan iyo Aaliya Bhatt Krish 4 vs Ajay Devgan and Ranbir Kapoor's film Superhero of Bollywood Hrithik Roshan wuxuu sanad ka dambe ciida masiixiga la iman doonaa taxanihiisa Krish qaybtiisa afraad oo dunida si weyn looga wada sugayo balse dagaal ayuu box officerka kala kulmi doonaa maadaama Ajay Devgan iyo Ranbir Kapoor filimkooda aan magac loo bixin isla xiligaas la daawan doono director Luf Ranjan filimkiisa aan magac loo bixinin balse jacaylka iyo shactirada isku dhex jirta waxa si rasmi ah shaaca looga qaaday in ciida masiixiga la daawan doono taasi oo ka dhigan in Hrithik